Kum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawow baro technology magacaygu waa Maxamed Axmed waxaan ahay soo saaraha muuqaalka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaa uga hortagi lahayd in mobilkaaga la xado security ahaan ama aad u ogaan lahayd mobilkaagu meel uu ku sugan yahay markaan ku leenahay sidee baad uga hortagi lahayd macnaha waa inaad ka sii hortid marka hore si marka lagaaga xado aad u heshid meesha ku sugan yahay marka hore waxaad u baahan tahay marka hore hadaynu tagno qaybteenan city-ka hadaynu tagno waxaanu imanaynaa qaybtan ay ku qoran tahay Google halkan wuxuu noogu saarayaa email-keeni waxaanu dooranaynaa qaybtan ay ku qoran tahay security find my device halka ay ku qoran tahay ayaa ka dooranaysaa dabeeto wuxuu ku saarayaa inaad booqatid website-ka inaad Play Store-ka ka soo download gareysid ama get it on Google Play inaad ka heshid application-ka waxaan doonaynaa inaanu ka soo doorano qaybtan application-ka find my device dabeeto waxaan sameynaynaa Google Play Store-ka ayaan noogu furayaa waynu dooranaynaa dabeeto install ayaynu leenahay runtii hadaynu eegno waa barnaamij muhiim ah 4.5 waa haystaa star 630 review ayay ku sameeyay review 4.5 size-kiisu hadaynu eegno waa 2.0 megabyte rated-ku waa 3+ weeyaan 50 million na way download gareysatay open ayaad leedahay dabadeeto sign in as guest oo soo gali kartaa ama continue as email-kaagii uu kugu jiray dabadeeto waxaan oranaynaa continue as kaay ugu jiray Maxamed aha dabadeeto password-ka ayaan gashanayaa dabadeeto sign in ayaan leeyahay waad aragtaa location-ka ayuu ku shaqeeyaa application-kan location-ka waa inaad u ogolaataa inuu access gareyn karo allow ayaa leedahay dabadeeto wuxuu ku saarayaa mobilkaagu halka uu yaalo ama uu ku sugan yahay marka waad aragtaa qaabkaas ayuu kugu saarayaa iyo inta mobil ee lagaga jiro email-ka waa muhiim pointigaasna inta mobil ee lagaga jiro email-kaaga ama ku jiray halkan waxaad aragtaan Galaxy G5 Prime in aan kaga jiray mar hadeerto ma soo qaban karayo waayo internet kuma furna haduu internet ku furan yahay uu soo qaban lahaa waxaan kaloo kaga jiray Galaxy G7 isagana ma soo qaban karayo kanna waa hadda mobilkan kaga jiro oo ah Galaxy On6 marka waxaan doonayaa inaan idin tuso 3 option ayaa awoodaa marka mobilkaaga laga xado qaybtan waad aragtaa hadda waxaan ku rabaa kan inaan ku tuso aan isticmaalayo labada kale kagama jiro kan iyo kan kagama jiro location-kooda waayo ma soo qaban karayo waayo data hadda kuma furna marka mobilkan hadda isticmaalaya ayaan rabaa inaan idinka tuso qaabka uu sameynayo ama uu u heli karo location-ka uu ogaan karo haddii datada ku furan tahay ama internet lagu furo wuxuu sameynayaa 3 option ayuu ku sameynayaa option-ka koobaad oo ah inaad ku sameyn kartid waxa loo yaqaano play zone ama haduu mobilkaaga ka agdhow yahay aad weydid camal oo kale in aad play zone aad taaban kartid si uu qayliyo aad markaana u heshid mobilkaaga dan doorano play zone ayaa leedahay stop option horta waa ka isagu option waa ka inaad play zone ka tiraahdid option-ka kalena waxa weeyaan inaad tiraahdid secure device iyo option-ka saddexaad oo ah erase device inaad already ama totally inaad mobilkaaga masaxdid secure device hadaan doorano wuxuu ka rabaa lock screen message iyo phone number kan runtii isagu waa inaad lock screen ku sii xidhid iyo inaad phone number-kaaga gelisid waxyaabo noocaas weeyaan kan isaga hadda ma rabno shaqeynayno si guud galno waxaan rabnaa labada option 3 option si guud ayaan idin tusayay runtii waa application muhiim ah aadna kaga hortagi kartid mobilkaaga laga xado hadii laga xadana aad ku heli kartid
waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday intaan isugu soo noqon doono casharkan iyo cashar kale xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hana ka ilaawin haddaad ka heshay fiidiyowga inaad like saartid, sidoo kale fikirkaaga aad ku cabirtid ama aad noogu soo qortid commentiga.